Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran Maa'ida Kartuun dhammaantiin waa salaamantihiin maanta waxaan idiin wadaa sheeko cusub. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa lax waxay damacday inay biyo ka cabto meel webi ah. Ayadoo meeshii biyaha ka cabaysa ayaa waxaa meeshii yimid dawaco waxayna ku tiri maanta waan ku cunayaa waayo waxa ay hayso gaajo xun. Maanta kuma dhaafi doono waayo aniga waxa ay hayso baahi zaa'id ah waana nasiib badanahay maadaama adiga aan ku arkay. Laxdiina aad ayay u cabsatay oo waxaa ka yimid dhidid aad u waaweyn. Alla ilaahayow maxaan sameeyaa ayay niyadda ka lahayd wayna cabsanaysa zaa'id. Mana baxsan karto waayo meesha ay degan tahay way ka fog tahay meesha ay joogto mana haysato qof ka badbaadiya dawacadan. Dawacani ma dhaafayo maanta waayo aad ayuu u baahan yahay maxaan sameeyaa. Kadibna way fikirtay waxayna go'aansatay inay dawacadan ka badbaado. Dawaca waan ogahay inaad baahan tahay oo aad doonayso inaa aniga cunto balse aniga marka hore oon ayaa i hayo waxaad ii fasaxdaa inaan biyo soo cabo. Hadda i cunto waxba kuuma tarayso laakiin markaan biyaha soo cabo kadib cunitaankayga waa ku raaxaysanaysaa oo wuxuu noqonayaa hilibkayga mid aad u macaan. Oo hadda waxa ay leedahay miyaa hilibkayga waxaa ku jira qaraar haddii biyaha aan soo cabano wuxuu noqon doonaa macaan. Laxdii aad ayay u cabsanaysaa iyada waxay ku fikiraysaa inay ka badbaado dawacadan maanta si kastaba ha noqotee. Dawacana wuxuu isleeyahay maanta waxaad cuni doontaa hilib aad u macaan waayo laxdan ayaa maanta kuu noqonaysa qado. Waayahay orod bax oo biyaha soo cab. Laxdiina waayahay ayay tiri waxay aaday webigii si ay biyo uga soo cabto laakiin dawiciina wuxuu ku sugayay halkaasi si uu u cuno laxda. Laakiinse dawacadii way awoodi weysay inay laxda bannaanka ku sugto si ay biyaha u soo cabto maadaama laxdii ay qaadanaysay waqti aad u badan oo oon zaa'id u hayay. Wuxuuna go'aansaday inuu ku weeraro laxda oo biyaha dhexdooda ku jirto. Laxdii fikrad kale ayaa ku soo dhacday waxayna tiri sug ha ii soo dhawaanin haddaan biyahan si fiican ugu soo qaweysto oo dhogorteyda si fiican u soo dhaqo hilibkayga wuxuu noqonayaa macaan iyo nadiif. Markaasna waad i cuni kartaa aniga oo nadiif waayo wixii cudur ah oo jirkayga ku jiro wuxuu ku soo dhaqmay biyaha oo waxaa noqday nadiif. Hadda dhogorteyda oo sidaan wasaq ah haddaad i cunto adiga cudur ayaa kugu dhacaya dhaqso ayaana dhimanaysaa laakiin nadaafadda wax walba way ka fiican tahay. Dawacadii waxay istiri waxa laxda ay sheegayso waa run wax walba nadaafadda ayaa ka fiican markaas ayay waxay ku tiri orodoo isa soo nadiifi markaa isa soo nadiifiso kadib ayaan ku cunayaaye. Aniga aad ayaan u jeclahay inaan cuno laxyaasha nadiifka ah. Laxda marmarsiinyaheeda ayaa batay waxay u malaynaysaa inay aniga iga badbaadaysa laakiin si kastaba ha noqotee lagama yaabo inay maanta iga badbaado waayo aniga waxa ay hayso gaajo aad u xun. Laxdii waxay aaday inay soo qubeysato dawacadiina halkan ayay ku sugaysaa iyada oo doonaysa marka ay ka soo baxdo qubeyska inay cunto hal mar ku boodo lafaheedana ay jajabsato. Laxdii markay soo qubeysato kadib ee bannaanka u soo baxday ayaa waxay tiri dawaca waxaan rabaa intaadan i cunin ka hor inaan hal codsi ku weydiisto. Dawacadii ayaa tiri adiga codsi badnida maxay tahay codsiga haddana aad i weydiisanayso. Dawaco intee jeceshahay inaa ka bilowdo cunitaanka intaadan i cunin ka hor. Dawacadii ayaa tiri waxaan jecelahay inaan lugahaaga ka bilaabo cunitaanka waayo lugahaaga aad ayay u macaan yihiin. Laxdii ayaa tiri intaadan i cunin ka hor waa inaad iska fiirisaa lugahayga waayo waxaa laga yaabaa inay wasaq zaa'id leeyihiin oo haddaa i cunto oo jeermis kugu dhaco oo halkaas aad ku dhimato. Dawacadii way garaawsatay hadalka laxda waxay u malaysay inuu run yahay. Waxayna go'aansatay inay iska fiiriso laxda lugaheeda maadaama ay qoobab waaweyn leedahay. Dawacadii markay foorarsatay oo ay rabtay inay fiiriso laxda lugaheeda laxdii bahal haraanti ah ayay tiri iska qabo biyihii ayay ku dhex riday. Dawacadii oo qaylinayso. Dawacadii aad ayay u xanaaqday aad ayay u qaylisa waxay tiri laxyay qayaanooleyda kama filanaynin inaa sidaan ii qayaanayso
oo aniga igu tuuraysa biyaha. Laxdii ayaa tiri saaxiib, aniga maanta dhan ayaan kuu fikiraayo si aan adiga kuu dilo, adigana waxaa rabtay inaa aniga i cunto. Waan kaa tegay saaxiibee, biyahaaga ku dhex dabaalo nabaday. Asxaabta sheekada gunteeda waxay tahay god qayaana ha qodin, haddaad qodana ha dheeraynin, inaa ku dhici doonto ma ogide. Asxaabay halkaas ayay ku dhammaatay sheekadeena. Channelkeena Maida Cartoon, fadlan subscribe saar, like iyo commenti haddaad nagu cusub tahay. Waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto haddaad nala joogtayna